kulan waxa saaxiibayaal argagixisada shabaab ayaa xoogeeda isugu geysay saacadihii dambe ee maanta shalay ilaa iyo darad degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkan oo la sheegay kooxda inay doonayso inay ku dagaalanto 24 saac ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo iyo duulaan ay wadeen ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ayaa lagu qaadayay deegaano hoostaga degmadan waxaana wararkii ugu dambeeyay imaanaya ay sheegayaan in howlgalka iyo duulaankii ugu dambeeyay ciidanka isgarabsanaya ay wadeen uu ka dhacay halka lagu magacaabo Waabweyn oo kamid ah tuulooyinka hoostaga degmada Maxaas shabaab ayaa la sheegay in gaadiid dagaal oo aad u fara badan ay soo dhoobeen degmada Maxaas iyo maleeshiyaad badan waxaana la tilmaamay in gaadiidka ay ku jiraan kuwa loo yaqaan Cabdibilaha iyo gaadiid kale oo dagaal kuwaas oo la sheegay in maleeshiyaadka xoogooda uu ahaa sidoo kale ay soo keentay degmadan ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ayaa weeraro qorsheysan waxay ku qaadiyeen Waabweyn oo kamid ah tuulooyinka laga ilaaliyo Maxaas waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in ujeedka shabaab uu yahay laba midkood in ay duulaan ku qaadaan ciidanka xoogga dalka fadhiyada ay ku leeyihiin aayaga Maxaas iyo in kooxda ay ku dagaalanto difaaca degmadan wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga